السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وذا صاحب يال وأستاذ عبد القادر. halkan waa hoyga barashada cilmiga ICT-ga iyo teknolojiyadda Today Technology Computer. sida weed maanta waxaa saaxiibayaal ka hadli doonaa course hordhaca kaasi oo ku saabsan saaxiibayaal graphic design-ka. waxaanu si introduction guud ahaan uga hadli doonaa waxyaalaha aynu ku baran doono course-keenan laba software oo imika aan duubistooda halkan ku hayno. markaa saaxiibayaal waxaad ogaataa software kasta marka la baranayo horta wuxuu leeyahay introduction kaas ama interface-yada iyo waxyaalaha ka kooban yahay ayaad ku baran doontaa. sida ogeed maanta halkan waxaan ku baranaa saaxiibayaal introduction of Adobe softwares oo ay leedahay shirkadda Adobe marka hore magaca saaxiibayaal waxa uu ka yimi waa shirkadda iskale software-radan oo loogu magac daray. haddaba saaxiibayaal Photoshop interface maanta ka hadli doonaa ama wejigan koobaad ee markaan soo furno software-kan inoo soo kacaya ayaan insha Allah ka hadli doonaa. haddaba software-keena interface-kiisa waxaan saaxiibayaal ku soo koobnay 6 qodob haddii aad taqaano mid kastana waxa si hoos kala taqaano si fiican baad insha Allah u garan doontaa isticmaalka software-radan. haddaba saaxiibayaal qodobkeena koowaad wuxuu noqonayaa document window haddii saaxiibayaal aanu nimaadno waa daaqadan koobaad ee kuu soo baxaysa markaa software-kaaga soo kiciso ee aad soo doorato meeshii aad ku shaqayn lahayd ama qaybtan cad ay markaa inoo muuqato dhexe ayaa la yaqaanaa document window. waayo waa meeshii wax ka qoranay waa position-kii wax ku edit gareyn wax ku design gareyn. haddii aan saaxiibayaal xaqa kale ka tuso marka aynu file dhahno new and soo dhahno daaqadan halkan ayaa marka hore laga soo doortaa daaqadan cad ee marka aynu joogno daaqadan marka cad aynu joogno ee saddexdan shay yaalin circle-kan iyo square-kan iyo triangle-kan waxa laga soo doortay markii hore saaxiibayaal horeysay file baa markii la soo kiciyay software-ka horeysay ayaa dibadna la soo doortay. haddii marka xagga saaxiibayaal aan ka soo doorno waad aragtaa options-kan kala duwan. marka document window saaxiibayaal intaas ayaa la yiraahdaa. haddii saaxiibayaal qodobkii labaad aynu nimaadno waa tools panel ku saaxiibayaal waxay noqonayaan qaybtan dhinaca bidixna ka qabanaysa ee faraha badan leh waana toolasha ugu muhiimsan ee ay tahay qofka software-radan baranaya inuu fahmo isticmaalkooda iyo sida ay u shaqeeyaan uu aadna practice gareeyo. marka mid kasta waxa ku sii hoos jira qaybo kale oo badan. qaybaha kale badan waxa loo yaqaan options bar marka waxay noqonayaan saaxiibayaal haddii marka kaas oo kale misalan aynu taaganahay lasso toolka ama aynu taaganahay move toolka oo right click aynu dhahno left click aynu dhahno waxyaalo kale badan baa ku soo baxay ku hoos jira. salaadii marka aynu xagga nimaadno oo saaxiibayaal aynu nimaadno ka soo qaad baa gradient-ka aynu waxyaalahan kale rada isku dhex jira intana mid baa ku sii hoos jira. marka waa options bar waxyaalo badan baa ku sii hoos jira ay ka dhigan tahay. haddii marka halka angleska iyo xaglu ku jiraan taabto waxyaalahan faraha badan ee taxan ayaa ku hoos jira. marka halkaasina waa maxay waa options bar. saaxiibayaal haddii aynu nimaadno menu bar wuxuu noqonayaa isna qaybtan sare ee lead-ka top side-ka dhinaca u sareysa software kasta uu leeyahay ayaa menu bar la yaqaanaa. marka qayb kasta waxa ku sii hoos jirta waxyaalo kale oo badan oo aad loo isticmaalo. marka joogto Illustrator, InDesign, Adobe Photoshop intaba saaxiibayaal software-da shirkadda Adobe waa isku lamid ama software kasta interface-kiisa marka koobaad iyo marka hore waa sidaas. haddii aynu saaxiibayaal u nimaadno workspace ama aynu nimaadno qodobka shanaad oo qani panels waxay saaxiibayaal noqonayaan ama loo isticmaalaa waa qaybtan dhinaca midig naga qabanaysa kalarada iyo waxyaalaha laga maamulo sida casaanka imkaan ka dhigay halka imkaaniga ka dhigay doog waaniga ka dhigay cadaan haddii xagga wada kaxeeyay marka qaybtaasna waa qaybtaas waxyaalo badan ayaa ku hoos jira waxaana loo yaqaanaa baan leeyahay panels. marka software-ka tagtaba waa iskaga mid software-ka tagtaba waa iskaga mid. haddii saaxiibayaal aanu nimaadno qodobkeena lixaad workspace waxaan odhan karnaa daaqada imika lagu shaqeynayo shaqada ku hayno ee imika xagasha aan soo jiiday triangle-ka aan soo dhigay ayaa loo yaqaanaa workspace. sidoo kale xaggana workspace waa la marka window saaxiibayaal aan joogno halka haddii imkaan ka doorno option-kaas labaad waa workspace waxaana ku sii jira waxyaalaha essentials oo muhiim ah. haddii imika essential files aad tiraahdo waxyaalaha u baahneed oo dhan ayaa side-kan ku imanaya side-kan kaa qabanaya dhinaca midig iyo dhinaca bidix dhammaan automatically haddii essentials aad doorato way kuu soo baxayaan. waxyaalahan kalena waa options kala duwan tusaale markuu kaa xumaado oo kale ama waxyaalaha qaar aad weydo reset essentials baa oranaysaa marka sidiisii buu ku celinayaa. sidoo kale
workspace ayaad abuuran kartaa. haddaba saaxiibayaal kooraskan waxaan ugu talagalay introduction iyo waxyaalaha kala duwan ee aan ku baranno software-adan iyo qaababka ay u shaqeeyaan oo introduction gaabana. haddaba saaxiibayaal haddii aad daynanayso ama aad jeceshahay inaad sanadkan 2024 software-adan oo loogu isticmaalka badan yahay suuqyada caalamka ama suuqyada dalkii hooyo aad jeceshahay inaad barato, waxaan ku diyaarinay koorsooyinkan oo aad ku baran doonto muddo aad u gaaban oo waqtigoonan kaaga lumin doonan, weliba hab online ah adoo goobtaada shaqo jooga ama gurigaaga aad ku baran doonto, taasi oo kugu qaadan doonto muddo 2 bilood ah. haddii labada software horeeya markaynu joogno aad fahanto InDesign-kuna waa so easy. sidaa awgeed saaxiibayaal waxaad soo booqan kartaa website Tugana Today Technology. sidoo kale saaxiibayaal haddii aad jeceshihiin inaad nagala socotaan arrimahan teknolojiyadda nagu soo biira fadlan oo page-keena la kareeya. mahadsanidin.